kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal diblomaasi media ayaa daawanaysaan waa Jimco 10 bisha 10aad 2025 ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay waxaan ku horeynayaa qodobkan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada taliska dhexe ee Mareykanka loo xil saaray kormeerka hirgelinta heshiiska nabadda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin kaas oo qayb ka ah qorshaha nabadda ee uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida uu sheegay mas'uul Mareykan ah oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ciidamadaas waxay bilaabeen sameynta xarun isku dubid ah gudaha Israa'iil si ay u taageeraan fulinta qorshaha Trump ee nabadda Gaza mas'uulkan ayaa intaasi ku daray in ciidamadaas ay ka shaqeyn doonaan isku dubidda bixinta gargaarka bini'aadanimo iyo sidoo kale maamulka howlaha amniga iyo logistikada ee la xiriira hirgelinta heshiiska waxaa la xaqiijiyay in cutubyo ka mid ah ciidamada Mareykanka ay horey u gaareen Israa'iil iyadoo la filayo in tirada guud ay gaarto ku dhawaad 200 oo askari ha yeeshee lama qorsheynayo inay galaan gudaha marinka Gaza dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wadahadaladii socday maalmihii la soo dhaafay ay horseedeen heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo dagaalka isla markaana uu ku sii jeedo bariga dhexe si uu uga qayb galo marxaladda xigta ee heshiiska Trump ayaa cadeeyay in soo deynta maxaabiista lagu wado inay bilaabato Isniinta ama Talaadada soo socoto ayna jiri doonto xaflad saxiix ah oo ka dhici doonta dalka Masar madaxweynaha Mareykanka ayaa u mahadceliyay dhowr dowladood oo arrintan dhexdhexaadinta waday laba arrin baa loo qaadan karaa Mareykanka ciidankiisa inay gaaraan Israa'iil waa mid koowaad Trump inuu doonayo inuu ka dhabeeyo heshiiskan maadaama la isku daalay cid guuleysatana aanay jirin inkasta oo la dhihi karin waa laba dowladood markay ay dagaalamayaan ayaa la dhihi karaa cid guuleysatay ama guuldareysatay ma jirto koox quwad leh oo militariga Israa'iil ah iyo koox iska caabin ah oo dhulka oo dhanba ka xiran cid guuleysatay maanta waa Hamas sidaas darteed in Mareykanka qorshe gaar ah uu uga dan leeyahay ciidankan oo u dirayo Israa'iil iyadana lama yaqaan waa labadaas ama in qorshe gaar ah uu ka wato ama in Trump uu doonayo inuu heshiiska si rasmi ah u dhaqan geliyo qodobka xiga waxaa magaalada Tel Aviv gaaray laba ergey oo Mareykan ah oo ah Steve Witkoff iyo Jared Kushner kuwaas oo booqashadoodu ay la xiriirto kormeerka iyo dardargelinta wajiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ee Gaza sida ay baahiyeen ilo warbaahineed oo Israa'iili ah telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil ayaa sheegay in wafdiga uu ka degay garoonka Ben Gurion iyagoo qayb ka ah dadaalada Washington ee lagu xaqiijinayo fulinta qodobada heshiiska xabad joojinta ee la gaaray waa berigii hore ee shalay oo Khamiis ahayd kadib wadahadalo aan toos ahayn oo 4 maalmood ka socday magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar heshiiskan oo ah wajiga koowaad ee qorshaha Trump ee Gaza wuxuu dhigayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka kadibna ciidamada Israa'iil ay qayb ahaan uga baxaan gudaha marinka Gaza afayeenka dowladda Israa'iil Shosh Bedrosian ayaa sheegtay in golaha amniga ee wasiirada Israa'iil ay ku kulmi doonaan Jerusalem si ay u ansixiyaan heshiiska warar soo baxay waxay sheegayaanba in golahaas wasiirada ay si rasmi ah u ansixiyeen heshiiskaas taasoo macnaheedu yahay hadda in la bilaabayo in marka hore qalinka labada dhinacba hal meel ay ku duugaan iyagoo wada joogo waana kulan ka dhici doona dalka Masar Trumpna inuu ka qayb galo ay macquul tahay sida uu horeyba u sheegay markaas kadib ay bilaaban doontaa in dhinacyadu ay maxaabiista isdhaafsadaan ilaa Isniinta ay gaari doontaa maxaabiista isdhaafsigooda qodobkeena xiga hadal looga baranin Israa'iil madaxdooda kii mucaaradka ahaa iyo kii muxaafidka ahaaba ayaa soo baxay oo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ninka la yiraahdo Gideon Saar ayaa sheegay in dowladdiisa aysan qorsheyneynin inay dib u bilowdo dagaalka marinka Gaza isagoo adkeeyay in Israa'iil ay si buuxda ugu hoggaansantay qorshaha nabadda ee uu dejiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay xalka dhameystiran ee lagu soo afjarayo dagaalka
Saar oo wareysi siiyey telefishinka Fox News ee Mareykanka wuxuu yiri lagama yaabo Israa'iil inay dib u bilowdo dagaalka Gaza. Waxaan si buuxda uga go'anahay qorshaha Trump. Waxaan rajaynaynaa in dhammaan wajiyadiisa iyo qodobadiisa la hirgeliyo. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in xabajoojinta si rasmi ah loo shaacin doono marka golaha wasiirada ay ansixiyaan go'aanka wajiga koowaad ee heshiiska maxaabiista, kaas oo ay wada fududeeyeen Mareykanka iyo Qatar iyo Masar iyo Turkiga. waa tahay sida aan idiin sheegnayba saaxiibayaal, waa wajiga koowaad in Xamaas ay sii deyso dhammaan maxaabiista gaar ahaan kuwa nool 72 saacadood gudahooda marka heshiiskan dhinacyadu ay qalinka ku duugaan. Markii la weydiiyey in Xamaas loo ogolaanayo waqti dheeraad ah si ay u raadiso maxaabiista dhintay, Saar wuxuu ku jawaabay qodobada heshiiska waa kuwa cad. waxaana rajaynaynaa in dhinacyadu ay ixtiraamaan iyaga oo ku sii dheeraanayn dib u dhac ama marmarsiinyo. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in ka bixitaanka koowaad ee ciidamada Israa'iil ee Gaza uu bilaaban doono sida isla marka golaha wasiirada ay gaaraan go'aanka, taas oo qayb ka ah wajiga koowaad ee qorshaha Trump. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku xiray dhamaystirka wajiyada kale ee heshiiska in Xamaas ay fuliso dhammaan ballamaha iyo shuruudaha lagu heshiiyey. Waa markii ugu horeysay oo hogaamiye Israa'iili ah uu yiraahdo dagaal dambe ma qaadayno. Waaga qodobka xiga ayaan u gudbayaa. Ka hor intii aan si rasmi ah loo shaacin heshiiska Sharm el-Sheikh oo ay dhexdhexaadinayeen Masar, Qatar iyo Turkiga, Israa'iil waxay ku rajo weyneyd in dunida ay ilowdo ama cafiso dembiyada dagaalka Gaza. Ha yeeshee, warbixinada reer galbeedka oo ay ka mid tahay mid lagu daabacay wargeyska Politico ayaa si cad u muujiyey in go'doominta Israa'iil aysan hadda ahayn fikrad siyaasadeed oo keliya, balse ay noqotay xaqiiq dhab ah. Muuqaalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee shirkii qaramada midoobay wuxuu noqday astaanta keli ahaanta Israa'iil ama sida loo go'doomiyey. Wuxuu u muuqday nin dunida oo dhan go'aan ka gaartay. Diyaaradiisuna waxay ka leexatay hawada dalalka Yurub, isagoo ka cabsanayay in lagu xiro ama amarka maxkamadeed oo ka yimid maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC-da. Markii uu khudbadiisa jeedinayay, hoolkii uu ka hadlayay ayaa u ekaa mid bannaan oo dhammaan madaxdii kasoo qayb gashay kulankaas ay ka baxeen. Dhinaca kale, marka muddooyinkii ugu dambeeyey, hogaamiyaal iyo diblomaasiyiin reer Yurub ah ayaa si cad ugu eedeeyay Israa'iil inay geysatay dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada, iyadoo isla waqtigaasna Mareykanka uu kasii xoogeysanayay codsiyada lagu dalbanayo in la joojiyo hubka loo dhoofinayo Israa'iil. Xitaa siyaasiyiin dimuqraadi ah oo horey u taageeri jiray sida Jake Sullivan oo ahaa la taliyihii hore ee amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sidaasi yiri. Bishii Agoosto, 28 dal oo reer galbeed ah ayaa si wadajir ah ugu baaqay Israa'iil inay joojiso rabshadaha iyo xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan Gaza, iyadoo isla mar ahaantaana ay soo baxeen hanjabaado ku saabsan in la mamnuuco ka qaybgalka Israa'iil ee goobaha dhaqanka, tacliinta iyo ciyaaraha ee dalalka Yurub. Haddaba saaxiibayaal, dhinaca kale, dad badan oo Israa'iili ah ayaa rajadooda ay ku tiirsanayd in Donald Trump uu weli sii difaaci doono Israa'iil. Netanyahu wuxuu aaminsanaa in Trump uu dhinaciisa taagan yahay oo uusan ku qasbi doonin wax tanaasul ah. Laakiin lama filaan ayaa dhacday. Trump ayaa bilaabay inuu saaro cadaadis siyaasadeed oo aan horey loo arag ama looga aragba Mareykanka oo dhan, taasoo dad badan ay soo xasuusisay digniintii adkeyd ee madaxweyne Eisenhower uu u diray Israa'iil sanadkii 1956. Haddaba bishii Sebteembar, Netanyahu ayaa si dadban u qirtay xaaladda go'doominta markii uu sheegay in Israa'iil ay tahay inay noqotay meel aan isku filnayn. Dhanka kale, gudaha Israa'iil, shacabka daalan ee dagaalka aadka ugu daalay waxay si joogto ah u muujinayeen rabitaankooda in la joojiyo colaadda. Aragtiyaha bulshada ayaa tilmaamayay in Israa'iiliyiintu si wanaagsan u fahmeen sida dagaalka uu u dhaawacay sumcadda dalkooda iyo xiriirka ay dunida la lahaayeen. Dib u bilaabidda dagaalka, marka loo eego cadaadiska gudaha iyo kan caalamka, hadda waxay u muuqataa mid adag in dagaalka dib loo bilaabo.
waana tii hadda aan ka soo hadlaynay oo wasiirka arrimaha dibadda ee Israel uu yiri dagaal dambe ma qaadayo. waayo Mareykanka iyo Israel isku haleynaysa. Trumpna go'aan cad ayuu ka qaatay. waayo Israel meesha kaalmaha ugu weyn ay ka hesho waa xukuumadda Washington. Trumpna wax walba uu iska qaadan karaa sidii Biden oo kala maaha oo sida la rabo laga yeelanayo. intaas ayaa saaxiibayaal barnaamijkan ku soo afmeeraya. intaan ku kulmi doono